السلام عليكم halkani waa noolaato aniguna waa Yaanla Xuseen Cabdi maanta waxa farxad ah inaan la kulmay Umar Cabdulqaadir Axmed Fiqi oo ah musharax u taagan xilka madaxtooyada Soomaaliya. Umar waxaan ku wareysanayaa magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya. Waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo xaaladda guud ee siyaasadda wadanka, waxa uu doonayo inuu ka qabto dalka hadduu fursad u helo iyo haddii ay noqoto xaaladda wadanka maanta meesha uu ku sugan yahay sida uu arko marka la eego xagga siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha. Umar aadan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo ku soo dhaw ha noolaato. Ugu horeyn waxaan jecelahay bal marka hore waa kuma Umar Fiqi. aniga magacayga waxa la yiraahdaa Umar Cabdulqaadir Axmed Fiqi. waxaan ku dhashay magaalada Gaalkacyo 1960kii. ilaa galaaska saddexaad baan ku soo dhigtay magaalada Gaalkacyo. galaaska afraad waxaan ka bilaabay magaalada Muqdisho. ilaa aan jaamacad ka baxan waxaan joogay magaalada Muqdisho. Soomaaliya waxaan ka dhoofay 1982. waxaan tagay qurbaha gaar ahaan waxaan ku noolaa dalka Canada ka bacdi jaamacad baan Canada uga baxay takhasuskaygu waa caafimaadka gaar ahaan waxa la yiraahdo immunology and molecular medicine inta badan waxaan ka shaqeyn jiray research ka bacdi Soomaaliya waxaan ku soo laabtay 2000 bishii November marka 20 sano oo u dambeysay waxaan joogay dalka gudihiisa waxaan ka shaqeynayay inta badan ganacsiga gaarka ah ama private business ka waxaan sameyn jirnay shirkado private si aan ugu abuurno dhalinyarada shaqooyin aan u tababarno sektorada ugu badan aan ka shaqeyn jirnay waxaan caafimaadka shirkadaha hadda ugu waaweyn oo caafimaadka ka shaqeeya gaar ahaan diagnosticska iyo clinicska iyo qalabka caafimaadka wax lagu baaro ayay soo gareeyaan waxaan kaloo ka shaqeyn jirnay dhinaca transportationka gaar ahaan hadda mootooyinka bajaajka la yiraahdo wadanka anaga ku soo bilaabay markii ugu horeysay shirkadaas waxaan u bixinay shaqo abuur si dhalinyarada shaqo ugu abuurto gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda waxa weeyaan laf dhabarka gaadiidka magaalada Muqdisho iyo sektorka ugu muhiimsan ee ay ku tiirsan yihiin dhalinyarada iyo caa'ilooyin fara badan aan families fara badan oo noloshooda ay ka maareeyaan waxaan isleenahay waa barnaamijkaas lagama guuri karo hadda ilaa iyo wax bedela la helo hadday noqoto gaadiidka magaalada adoo $1 baad meesha doonto ku tagaysaa magaalada haddii magaalada xiran tahay xaafada ka dhax ku dhex marinayaan dad badan nolol u noqotay nolol bay u noqotay dhalinyaro badan baa wax ka barata qaar baa makaanigiin ama tababarnay qaar baa waxaan u tababarnay inay spare parts keenaan marka sector xoog leh oo magaalada Xamar hadda iyo gobolada qaarkood dadka noloshooda ku xiran tahay way ka mid tahay waxaan sameynay warshado badan oo gaar ahaan basic industries-ka wadanka looga baahan yahay haday noqoto مثلا waxa hadda aad u shaqeeyo waxa la yiraahdo industrial gases kuwa lagu alhamo kuwa oxygen-ka sameeya caafimaadka kuwa maaragtay warshadaha basic-ga u baahan yihiin way qofkii warshad raba wax walba samaysan karo asag laakiin hadii wuxuu baahan yahay alxamka kale waa very important si wax loo alxamo waa in la haystaa gaasiska wax lagu alxamo oxygen-ka kamid ah oxygen-ka kamid ah marka waxyaalahaas oo dhan waxaanu ka abuurnay wadanka waxaan kaloo ka shaqeyn jiray arrimaha bulshada gaar ahaan nabadaynta dadku inay isdhex galaan sportiga sponsor gareyn jirnay marka waxaan xooga saari jirnay dhaqaalaha iyo dhalinyaradu inaysan aadinin tahriifta iyo inaysan aadinin ururadan qortahood $20 wax ku dilinin oo abuurno opportunities kaleeto ama se khiyaar kaleeto ay heli karaan fursado marka 20 sano wadanka oo dhan baa dhex maray Soomaaliya oo dhan baa ka shaqeeyay hadda ganacsiga waxaan ku leeyahay Soomaaliya from Djibouti ila Kismaayo xafiisyo nooga furan wallahi Umar laakiin waxaad ka shaqeynayso waa wax aad u weyn waa wax runtii dawladdu qaban lahayd inta soo shaqeeyo hadda Soomaaliya sidee tahay wax weyn marka xaalad loo fiiro laakiin dad badan waxay isweydiiyeen ninkan Umar khudbadiisa meel badan ku arkaydo comment badan laga bixinayo dadka hadlayaan intaas oo hawlaha hadaad qabatay Umar dadkuna kuma yaqaanaan maxaad isku qarinaysaa والله horta de ma ogtahay hadaan horta siyaasadda soo gali badana dadku loo baranaya ama media hada soo gali si ma ogtahay inaan isqariyo qorshe ma jirin laakiin ammaanka Soomaaliya ka jira daraadiis iyo xaaladaha ka jira awgood badana waxaan isku day jirnay in low profile si tartiib oo aadan muuqan waxtarna aad u leedahay aadan de target noqonin lagu la dagaalamin ama lagu dilin ama mogta cadow aadan yeelan way duruufta wadanka ka jirta sida marka waxaan mar walba isku day jirnay waxaan qaban karnaa inaan qabanno oo aanu bulshada waxtar u yeelano anu hadda muddo dheer baan ka shaqeynay Soomaaliya markaan imaanayay shaqaalanaha shaqo fiican baan haystay mushaar fiican baan qaadanayay Dubai baan markii ugu dambeysay joogay markaan 5 sano ka shaqeynayay dabaan saaxiibanahay baa igu yimiday wixii xaar baan ku geeniyay kaala soo aragnay
beri hore kugu dambeysay xamar markaan nimid waxaan go'aansaday inaan shaqadii ka tago oo xamar u soo wareego sababtii ugu kaliftana waxay ahayd waxaan markaan fiiriyey waxaa ii soo baxday inaan halkan ku waxtar badanahay oo bulshada iga faa'iidi karto xagga laakiin shaqaalana $7,000 baan qaataa ani carruurta baan ugu filantay wax kale igu badan qof baa $100 ku soo weydiisanaya dad tuursa wax kale ma tari kartid laakiin halkan yani dayacaad badan baa ka jirtay fursado badan oo qofkii wax garanaya uu buuxin karo oo dadkana wax ka tari karo asna wax ka abuurin karo ayaa ka muuqday marka alxamdulillah ilaah waa noo guuleeyey wax badanna annagu waa ka faa'iidnay wax dad badanna wax waa ka tarnay fursado badanna waa ka abuurnay marka alxamdulillah hadda marka xilligan waxaan isiri wixii ka dambeeya siyaasaddu jeeso inaad ama ritaar garayso shaqadii taqaacud aad gasho baahidan kale siyaasadda waddanka ka jirta bal isku day inaad wax ka qaban kartid ayadan muddo sanada fiirinay runtii waxay soo baxday inay maqan tahay aragti siyaasi ah oo duruufta hadda jirta iyo mustaqbalka dalkan ku wajahan oo dhammaan dadka hogaamiyaasha oo siyaasadda u tartamaya aysan lahayn aragti siyaasi ama fikir siyaasi siyaasadna waxa asal u ah oo mar walba lagu tartamaa waa fikir iyo aragti wax ka bedeli kara duruufta jirta caqabadaha jirana xallin karta horumarna hiigsan karta way intii aad hawshan ku jirtay 20 sano ah ee aad Soomaaliya joogtay haba yaraatee siyaasadda wax lagu kumaad lahayd mawsinka kii ka horreeyay 2016 ayaan xildhibaannimada u tartamay waxaan la tartamayay ninka hadda ahaa wasiirka amniga ducaale maxamed abuukar islow ayaan la tartamayay aniga filosofi ahaan marka waxaan mar walba dadka waxaan ka soo horjeeda laaluushka in la bixiyo oo siyaasadda lacag lagu kala gato duruufta jirtana waxay haddaadan lacag bixinayn wax heli maysid waa marka isku daygii ma guulaysan sababtoo ah kharashkii la rabay in lagu bixiyo oo gaar ahaan in wax codka lagu iibsado diyaar uma ahayn marka waxaan ka shaqaynay xoogaa odayaashii barnaamijka guud barinay inaanu bal isku dayno in aanu dadka ergada ah ku wacyigelino inaanu campaign strategy iyo programs iyo baahidooda mustaqbalka iyo deegaanadii ka soo jeedaan aan isku dayno bal inaan waxaan idin qaban doonaa waxaan doon doonaa uma jeedaan dadku meeqaal lay siinayaa bay u jeedaan mustaqbalka soo iibsanaya marka qof mustaqbalka iibsanaya markaan daba galno dadku ma wacyigashan oo qofkan ergaga wuxuu mas'uul ka yahay maybe 10,000 oo qof oo codkoodii haya oo mas'uul ka yahay oo uu rabaa meesha ugu wanaagsan oo barita bulshada wax tari karta inuu ugu codeeyo laakiin kama warqabo wuxuu leeyahay aniga meeqaal lay siinayaa waxaa laga markuu soo geliyo inuu lacag soo bixiyo oday lacag soo siiyo halkan uu yimaado lacag waraato waxaa laga yaabaa inuu leeyahay oo in xalaal tahay uu haystaaba marka doorashadaas waa ku hungowday 2016 marka 2016 waa ku hungowday 6 cod baan ka helay konton iyo kowdii lixda qof marka waa dad ku qanacad leedahay lixdaas qof shan ka mid ah waxay yiraahdeen waxay hadaan laaluush qaadanay oo diiday guud ahaanba oo yiraahdo codkayga waxaan u bixinayna meeshaan u aragno inay sax tahay qofna lacag kama rabno qofkii de moogtahay shahaad oo kale qofka dad ugu yimaado waa gooni laakiin 5,000 baan rabaa 4,000 baan rabaa meeqa siinaysaa codka hebel baan siinaya ma irin masiirka ummadda iibi iibkaas kuma jiro marka was acceptable oo hadda culaysa ma lahayn aad baan ugu faraxsanaa inaad wax weydo dhib ma laha tartantaa muhiim ayaa muhiim ah inaad istijaabiso ood aragti meesha geysid adoo ka warqaba marka xaaladda waddanka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dhaqanka maanta waddanka ka jira hadday siyaasadda noqoto aad og tahay inaan lahayn ilaa hadda qof siyaasi ah oo siyaasadduna waa maslaxad dadka in la mideeyo oo danahooda laga shaqeeyo qof fulin kara in la waayey intaas 30 sano lagu qaadatay xagga dhaqaalaha markaad ka warantana dhaqaalihii xataa uusan ahayn dhaqaale istaraatiijiyad ku dhisan oo maanta ummaddii oo dhan ay wada leedahay dowladeed xagga bulshada markaad ka warantana aad aragto corruptionkan iyo waxa la leeyahay musuqmaasuqan oo dadkii dhaqankoodii bedelmay maxaad waxaasoo dhan ka qaban kartaa bay kula tahay sideedsa fursad ugu dhaxili kartaa meeshaas ana horta si dhaba waxaan soo bandhigay waxyaabaha aan isleeyahay dowladnimada Soomaaliya waa lagu sixi karaa iyo meelaha ay aan isri markaan fiiriyay waa meelaha ay aan dadku si dhaba looga hirgelin dowladnimada 60kii sano hadda dowladda ahayn markaan dib u raacay dowladdii hore waxaanu ka dhaxalay gumeysi nidaamka gumeysi oo jiro shaqeynayay ayaanu la wareegnay ilidkeen iyo dadkii la wareegeen aragti Soomaaliyeed ay kuma dhisnayn marka ka bacdina waxaan ku fashilanay nidaamkaas aanu dhaxalay inaan ka shaqeysiino oo sidii loogu talagalay ugu shaqeeyo
duruufihii jiray awgood miya dadkoon u diyaarsanayn miya xadaaradoon gaarsiisnayn miya aqoontii yaraydba ha ahaato kabacdina markii wixii la soo fahmay waa lagu diriray dadka taariikhda ka shaqeeya waxay aaminsan yihiin oo yidhaahdaan doorashadii 69kii boobkii SYL ay samaysay iyagaa ahaa xisbil xaakimka ama xisbil tirani ayaa waxaa ka dhashay madaxweynihii in la dilo madaxweyne la dilo waxaa ka dhashay in militarigii meesha qabsado hay'adihii dastuuriga ahaa la baabi'iyo iyo dastuurkii waddanka 20 sano lagu hoos noolaado xukun dictatoriyadii waxaa ka dhashay dagaalka sokeeye waxaa bedelay dawlad fashilan oo shaqayn weysay oo Soomaalida wali aysan ku heshiinin meeshaas taagan xagee ka aanaa warka meesha taaganta waxaan isleeyahay marka waxaan u baahanahay aragti cusub oo Soomaali leedahay dawladnimada in lagu dhiso oo Soomaaliya cusub yagleeli karta taasina waxay u baahan tahay hoggaan cusub oo fahamkaas leh meeshii laga yimid iyo taariikhdii waddankana ka warhaya haddana yeelan kara aragti fog oo waddankan iyo mujtamacan lagu hagi karo Soomaaliya cusubna lagu yageeli karo Soomaalida cusub waa inay ku dhisnaataa dastuur waayo dastuurku waa waxa xeerka ummadan ku heshiisay oo kala hagayay isla markaana qeexaya hay'adaha dawliga iyo isu dheelitirkooda lagana isla markaana qeexaya marka labaad awoodda dadka mas'uuliyadahaas qabanaya lagana soo manguurin doono shuruucda dalka oo asaasiga shuruucda dalku marka maxay noqonaysaa waxa afka qaad wiilad rule of law hadduusan shaqayn oo dadkoo dhan si equal ugu wada shaqayn mujtamacu ma aaminayo dawladnimada caalamkuna hay-adaheena kuma kalsoonaanayo marka rule of law ama se waxa la yiraahdaa sareynta sharciga iyo talinta sharcigu waxay aasaas u tahay dawladnimadu inay shaqayso dadku iyo dawladda inay kala hagto dawladuna inay shacabku aaminaan oo ay arkaan inay leeyihiin oo ay cadaalad u tahay marka runtii muddo dheer wax arkayeen dad qof sharciga asaga gacanta ku wataba sharciga hadda waxa weeyaan qofka asaga iska wata ninna qoriyo gacanta ku wata sharciga gacanta marka dadkii uma sinna marka sinaan marka leeyahay waa inuu sharcigu dadkoo dhan u siman yahay haddii sharcigu uusan shaqayn waxa meesha ka baxaya wixii la oran jiray isla xisaabtan imaan bay in qorigu taliyo in qofku taliyo mas'uulka hadda nin wasiira halkaan guri ka dhisanay taliye booliska halkaan guri ka dhisanay saraakiishii dawladda halkaan guri lacagtii ammaanka lagu qaban lahaa ammaankii ma shaqaynaya marka sababtoo ah corruptionkii baa xoogaystay isla xisaabtan la'aantii maxay keentay corruptionkii inuu xoogaysto waxa meesha ka maqan leeyahay Umarow milkiyadii wixii lahaashii qofkii inuu ownershipkii wax inuu leeyahay inuu dareemo tusaale magaalada Muqdisho ama guud ahaan Soomaaliya nin kasto madaxa maalinta xil loo magacaabo hadduu gudaha ku noolaana ilmihiisu la baxaa maalintaas ayuu waxbarasho u raadsadaa guriyada dibadda ka gataa sax kii kale qurbo joog ahaa baasaboor ajnabi watayna gudihii markuu yimaado kaligiisa yimaado boorso wata dadkan say u xukumi karaan oo ay madax ugu noqon karaan dad aan carruurtoodii joogin oo aan isbitaalka isticmaalaynin oo aan jidka isticmaalaynin oo iskuulka isticmaalaynin say iskuul iyo isbitaal u dhisi karaan aniga aragtideeda horta runtii waxay sheegtay waa run hadda 30 sano u dambeysay narrative-ka ama aragtida aan dadkii Soomaaliya talada hayay saddex group kooda waa ragii loo oran jiray hogaamiye kooxeedyada welina haragoodi waa joogaa oo systemkay ka mid yihiin ama nidaamka hadda jiray ka mid yihiin qaybta labaad waxay ahayd maxaakiimtii iyo ururadii diiniga ahaa ee waddanka hoggaankiisa muddo dheer soo hayay waxaa soo raacay niman diaspora laga keeno oo 30 sano 40 sano waddanka ka maqnaa oo ayagoon xog badan ahayn inta la keeno xilka u sarreeya waddanka loo dhiibay oon u diyaarsanaynba xogna ogeyn saddexdaasi marka qolana aqoon darro ha ahaato qolana khibrad la'aan ha ahaato qolana ogaal la'aan ha ahaatee dawladnimada hadda jirta oo fashilan anugu yeero waa fashilan tahay ayagaa soo waday muddadaas marka hadda waxaan leenahay saddexdaas waxaan ahayn horta waa inay meesha soo galaan oo ah dad ka bannaanka ah santuuqaas saddexdaa group ah dad ka duwan oo bannaanka ka ah oo aragti cusub leh oo faham cusub leh oo ujeedooyinkii hore ujeedo kan doole sababta haddaad isla ayagii soo celisid waxay beddelaya meesha waad joogaysaa adeega bulshada waxa la yiraahdo oo ammaanka ugu horeeyo oo horumarinta caafimaadka ku jirto oo waxbarashada ku jirto oo infrastructure ku jiro ma la qaban karaa iyadoo nidaamkii dawliga ahaa la hagaajin marka prerequisite-ka ama se in waxa ka horeeyo la raba in la saxo waa systemka dawliga waa inuu saxmaa oo fahamkii sax ahaa u imaadaa oo dastuurkii la raacaa oo rule of law-gii ama se sareynta sharciga iyo talinta sharcigu adkaataa isla xisaabtankii uu yimaadaa oo hantida la boobayo iyo dhaqaalaha la boobayo uu meesha ka baxaa
transparency systemkii uu noqdaa ama uu daahfurnaada kabacdina dimuqraadiyadda waxa la yiraahdo la xoojiyaa dimuqraadiyaddu waa waxa dadka ownership-ka siinaya oo dadku uga qayb noqonayaan qaabka wadanka go'aanka looga gaarayo ama waxa la yiraahdo decision making processka oo mustaqbalka bulshada go'aanka looga gaarayo dimuqraadiyadda fududaynaysa waxa ugu horeeya ayaga xildhibaan soo dooranaya ayaga madaxweynaha dooranaya ayaga waxa dooranaya governorka ayaga waxa dooranaya madaxweynaha maamul goboleedka ayaga waxa dooranaya dadkii waxay ka qayb galayaan awood bay yeelanayaan dawlad awoodii dadka nu celinayna waay inta haddaanu ku guulaysano waxaa systemku awood u yeelanaya inuu adeegii bulshada wax ka qabto ammaankii wax ka qabto caafimaadkii horumariyo waxbarashadii maalgeliyo infrastructure aasaasiga ah korontadii biyihii wadooyinkii uu maalgeliyo inta haddii la maalgeliyana waxaa imaanaysa fursado dhaqaale in la abuuro oo dhaqaalihii la kobciyo laakiin adigoo nidaamkii dowladda kaa fashilan yahay adeeg bulshana ma qaban kartid fursad dhaqaale ama kobcin dhaqaalena ma samayn kartid marka sababtoo ah dowladnimada dhanba waxaa loo rabay waxay ahayd oo waxa la yidhahda mugta afka ingiriisi political system nidaamka siyaasiga ah oo bulshada in loo dhiso maxaa loo rabay inuu improve gareeyo ama waxa la yiraahdo improve human condition duruufta dadka inuu wax ka bedelo naftooda iyo maalkooda ilaaliyo deegaanka ay ku nool yihiin horumariyo adeeg ay helaan xuduudooda uu ilaaliyo fursad dhaqaale uu abuuro si qof walba awoodiisa ama potentialkiisa uga faa'iideysto marka waxaasoo dhan haddii nidaamkii dawliga kaa fashilan yahay lama qaban karo oo qof riyoon ayaad noqonaysaa marka waa inaan horta nidaamka dawligaa saxnaa oo wuxuu say u kala horeeyaan oo nolosha u kala horeysay iyo u kala hormar karaan wax kasta maxaad la yaabtay markaad arrimahaas oo dhan ka hadlayso waa arrimaha waaqic ah oo qof kasta Soomaaliya taabanaya maanta inay ka maqan tahay magaalada Muqdisho markaad aragto duq magaalada jooga gobornatoor gudoomiyaal ku xigeenno siyaasadda iyo amniga iyo waxaasaad maqlaysaa xafiisyo fadhiyo maalin walba la arko adeegii asaasiga ahna ma jiro marka waxa weeyaan runtii hadda waxaa moodaa nidaamkii kacaanka ayaa waxaa la rabaa dadka in dib loogu soo celiyo la dul saaro nidaamkaasna maanta waaqaca jira nidaam shaqayn kara maaha hadda tusaale haddaan kuu soo qaato daayto waanay kulahaa laakiin magaalada Muqdisho maantayto waa tusaale fiican adeega dadku u baahan yihiin waxaa ka mid ah qayb ama waaxda diiwaan gelinta magaalada Muqdisho maray qof hadduu dhinto meel inta la geeyo qofkaas waa dhintay shahaadadii dhimashada laga siin kara maray ilmihii dhasha meel laga diiwaan geliyo oo shahaadadii dhalashada warqadii dhalasho uu ka heli kara male meel qofkii guursada uu warqad marriage certificate wixii la jiray ama shahaadadii guurka uu ka heli kara male labadii kala tagta male marka mujtamaca waxyaabihii aasaasiga ah oo baahnaa oo documentiska ahaa oo qofku maanta hadduu wadanka ka baxo uu wax ku samaysan lahaa male laakiin maxaan leenahay gudoomiyaha siyaasadda gobolka Banaadir muxuu u qabtaa bulshada wuxuu u qabtaa lama jiraan gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Banaadir wuxuu bulshada u tara wuxuu u tara ma jiraan waxa hadda kor baan waxaan weydiiyay inta dhalinyaro meel isugu nimnay gudoomiyaha degmada Cabdicasiis wuxuu noo hayaa bulshada u hayaa yaa garan kara ma waxaan ka dhaxlay kacaankii oo iska daba galay mise baahi aan maanta u qabnaa jirin gudoomiyaha Cabdicasiis ee degmada Cabdicasiis qofka jawaab kara ma jiro marka waxa weeye waxay dhihi jireen ma ogtahay taqliidul a'ma عرفت أما كودايشو أن لو فيرسن marka runtii waxaan u baahannahay hoggaan fahmi kara baahida bulshada iyo waaqaca jira samayn kara waxa la yiraahdaa radical reformka marka warbarba waa inuu ku jaango'an yahay duruufta maanta jirta iyo baahida loo qabo bulshadan in la address gareeyo raba ama wax laga qabto laakiin aan wax loo baahan la iska sameeyo kharash lagu bixiyo xil kasta oo dawladeed macnuu ku fadhiyaa waa inuu wax ka jawaabo laakiin xilalka waran iska jira oo wax ka jawaabay oo lacag la iska bixiyo waxa la yiraahdaa waxay jireen waaye siyaasadda lacag lagu bixiyo ninka meesha jooga kore oo madaxweyne ayaa wuxuu rabaa dad asaga uu leeyahay oo u shaqeeya oo loyal u ah oo amaana oo asaga uu leeyahay annagana waxaan rabnaa bilcagsi waxaan rabnaa dadku inay u noqdaan loyal ama daacad nidaamka ee aysan shakhsi daacad u noqonin hadduu yahay madaxweyne xataa asaguna shaqaale isku arko oo dadka u adeego laakiin faahi waxaan u shaqeynay dhaqan siyaasi oo waxaa imaaday ninka madaxda ama madaxweynaha asaga uu ku takrifala awoodda dadku raba qorto dad asaga loyal uu sameeyo dawladnimadina waxaa loo rogay in askar la gaardisiiyo in maaragtay ciidamada la yiraahdo guulwadayaasha la abuurto habra in la soo shiriyo in la sabciyo in la heeso nin saddex habeen qatanaabad waxaad leedahay ii hees intaad saaka adigu bustay kusoo qoraan aqan xumadaas marka dawladnimadii maaha dawladnimadii si khalada bulshada loo fahamsiiyo marka waxaa la rabaa
wax walbaba in wax laga qabta faham bay u baahan yihiin fahamka ka bacdina aragti waxay u baahan yihiin waxaan lagu bedeli karo haddii rajadu dhimatana ogtay dadka raji ku nool haddii rajadu dhimatana dadku waa baaba'aya marka wayna jirtaa mar walba rajo ah meeshaan joogto meel ka fiican inaad geedi u tahay hayaan u tahay ya bulshaduna ay kula socotaa arkaysaana inuu horumar jiro hore u socdo waxaad u sheegtay wadadeedii la hayo waxa iswaafaqi la inta badan hadalka siyaasiyiinta iyo ficilkooda maxay taas sabab ah waa runta oo hadda moogtahay waxa laga yaabaa hadda markaan hadlayo in la yiraahdo waa kuwii hore oo kale markuu hadlayana waa hadal fiican berinta hadduu meesha tagaan uu ka sii daraaba laakiin run ahaantii annagu waxaan barmood garaynaa oo ka mida waxyaabaha aanu barmood garayno in xumaantana dadka laga reebo waxaan dhiirigelinaa dadka in xumaanta laga reebo oo aan haddaan rabno inaan dalku noo wanaagsado annagu aan wanaagsanaano beenta joojino laaluushka joojino khayaanada joojino isdamariska joojino ya wixii wax kastoo ilaahay naga mamnuucay oo xaaraana aan diidno haddii marka annaga aan wanaagsanaano adduunkuna waa noo wanaagsananaya danta allena waa wanaagsananaya marka horta waxaa la yidhahdaa carabta waxay tidhahdaa naxnu naxkum bidaahir wallahu aclamu bilbaadin gudaa ilaah dadka waxaan ku xukunaa waxa ka muuqda hadalkiisa anu marka waxaan leeyahay waa runtiin gar baad u leedihiin in ninka siyaasiga Soomaaliga aad u barateen beenlow waayo waxay idin sheegeen waxba kama ribin laakiin waxaan leeyahay anu waa ka duwana diin baan leeyahay shakhsiyad wanaagsan baan leeyahay iimaan baan leeyahay waxaan leeyahay reference ama tixraac dadka beenta ka faanaan ku jira dadka xumaha diidaan ka mid ahay dadka maaragtay wanaagga jecel baan ka mid ahay waxaan leeyahay wixii aad arki jireen waa ka duwanaan doonaa insha Allah taala marka fursadaas in la siiyo layguna tijaabiyo waa jeclaan lahaa waayahay Umar siyaasadda markaad eegto siyaasiyiinta la sheekaysato ama dhaqanka siyaasadda fiiriso siyaasiyiinta wax dhex yaala nacayb wax isku qooni waa cadaawad kala shaki iyaga isma aaminaan iska daa inay bulshada wax u taraabeen waxa laga shaqeeyaa kaliya waa mu'amarad iyo hebel ka taqallus iyo hebel ayri hebel siyaasiyiinta Soomaalidu haddii heshiiyaan wadankan waa ku wada filayay kulligood inay xilal ka wada qabtaan arinta maxaad ka qaban kartaa dadkan kalsooni ma ku dhaxaw kartaa inta shacabka la gaarin bal dadkan siyaasadda u ordaya absolutely waa sax waa runta arinta sheegtay waxba ka jira laakiin waxa weeyaan dadka haddii siyaasadda qof kastoo muwaadina xaq u leh siyaasadda inuu soo galo waxaa rabaa dadka in la siiyo nafaas ama space ay aragtidooda ku dhibtaan waxa ay qabaan ay ku sheegtaan si nabadgelyo ah laakiin haddaad ciriiriso waxaa imaanaya dadka inay reaction sameeyaan ama falcelin oo aan ahayn lid ku ah wixii la waday marka arrintaas waxaan isleeyahay mar walbaba hoggaanka jooga wuxuu ku fakaraa meeshan inuu sii joogo cid kastoo u arko inay tartan ku tahayna uu ciriiriyo anu marka aragtida waa ka duwan tahay waxaan rabaa dadka wanaagsan oo hoggaankeeda inay soo hormaraan bulshadu ayaan qabaa therefore waxaan leeyahay dadka space hala siiyo ninkii wanaagsanaa oo aniga ibadali lahaa waa inuu diyaar yahay nidaamkii ibadali lahaa waa inuu diyaar yahay waa inaan xataa maal gelinaa oo kharash ku bixinaa si ay nidaamka bedeli lahaa ama xisbigii bedeli lahaa ama aragtidii bedeli lahayd ay u diyaarsan tahay oo haddii aan meeshaan adigu aad ka baxdo aysan gaab imaan ama cillo noqonin ama aysan gacanta u gelinin dad aan diyaarsanayn marka waxay ka mid tahay aragtida fog oo siyaasiga ah waxaa la yidhahdaa mucaaradku waa inuu yahay loyal opposition waxa yidhahdaa afka ama mucaarad nidaamka ka mid ah oo la dhisayo isaga laftigiisa si uu berrito u noqdo hoggaan dhabahoo dalka hoggaamin kara marka aragtiday ku xiran tahay iyo fahamka iyo waxa qofku u baahan yahay markaan ku leeyahay hogaamiyayaasha hore waa ka duwanahay aragti ahaan qof siyaasi in la ciriiriyo ma qabo sharciga ayaa kala hagaya dadka sharciga ayaa la rabaa wuxuu qaba in lagu dhaqmo dadkuna dagaalku waa ka baxa nidaamkay aaminayaan nidaamkay jeclaanayaan nidaamkay difaacanayaan waa inaan gaarsiina marka ninka siyaasigaana nidaamka dhinaciisa ka difaacdo ninka shacabkaana nidaamka dhinaciisa ka difaacdo oo wax ay leeyihiin ay noqdaan taasuna waxaa keenaysa inaan dadka ciriirin inaan dadka adigu iska xijin dadka inaadan abuse garaynin ama se aadan ku takrifalinin waxaasoo dhan marka waa wax fudud oo la qaban karaan isleeyahay oo ay ku xiran tahay hoggaanka jooga daacadnimadiisa iyo aragtidiisa fog 30 sano waddankan la midayn layahay waxa laga midayn layahay waa siyaasadda ee dadka dhaqaalihi iyo dhaqankii iyo noloshu way socotaa waxa ugu weyn wax laga qaban layahay waa caasimadda Muqdisho waxay dawladdu ka dunteen waa caasimadda Muqdisho oo maalintii dawladdaas madaxweynuhu xamar ka baxay
ayaa ugu dambeysay dowlad Soomaaliyeed oo la dhahayo mataqaanaa markaas dowladdu duntay ra'yigaaga midnimada wadanka waxaad u aragtaa in caasimadii amaankeedii iyo nolosheedii iyo cadaaladeedii wax laga qabto mise in gobolada oo aan ahayn runtii marka hore wax la isku dilayahay awoodda caasimada taala xageed wax ka bilaabaysa arrinta maxaa ka qaban kartaa horta waa sax oo waqtay caasimadu waa wadnihii dalka hadduu wadnaha istaagaan qofku waa dhimanaya haddii caasimadii marka ay dhimato wadanka intiisa kale waa dhimanaya oo waa wadnihii oo maaragtay nationkan ama qowmiyadan Soomaalida la yiraahdo kuwa Soomaali jamhuuriyadda kamid iyo kuwa kalaba muqdisho waa magaalada kaliya oo Soomaali leedahay oo metropolitan waxa la yiraahdaa magaalo aan la kala lahayn oo qof kasta oo Soomaali markuu yimaado uu dareemayo meel uu leeyahay inuu joogo oo ajnabi yimaado Soomaali iska dhaafay waxaan rabnaa marka muqdisho xataa ajnabi inuu yimaado ku noolaado ay noqoto magaalo weyn oo international level ah mustawa caalami ah xaq dhinac walba dhinaca bilicda dhinaca dhaqanka dhinaca maamulka dhinaca horumarinta dhinaca dalxiiska yani waxa soo gaaray xamar oo dadka touristanka oo imaanayo xeebta liido dad cadaan mooyaane dadka Soomaalida hal yihiin la soo gaaray marka weligeed waxa weeyaan waa tourist destination waxay lahayd xadaarad fog muqdisho hadda inta la hubo 100 sano magaalo tahay oo la deganaa settlement maamul leh oo laga soo talin jiray metropolitan way marka multicultural haddana oo dhaqamo kala duwan leh mar caasimadii Soomaaliya waa commercial city Soomaaliya waa magaalada ugu weyn Soomaaliya ayada marka in qorshe gaar ay leedahay dib u dhis weyn lagu sameeyo dib loo yeegleelo maamul hanan kara oo dad aqoontoodii iyo aragtideedii leh ay maamuli karaan dawladdana ay fadhi u tahay waa wax muhiimadda koowaad u leh Soomaaliya oo dhan haddii xamar degto Soomaaliya inteeda wax aaminsan haddii xamar ay degto oo maamul sax ay yeelto oo ammaankeeda la sugo Soomaaliya problemkeedii half baa xalismay ama nus baa xalismay dadka hadda dibadda gobolada ku nool waxa laga yaabaa barkood inay soo guuraan oo magaalada dib u soo noqdaan marka horta aniga waa qaba aragtida ah xamar ama muqdisho meesha ugu horeysa oo dawladdu inay wax ka qabato ay tahay ammaankeedii iyo maamulkeedii iyo dib u dhiskeedii intaba sidoo kale to maogtahay kacaanka waxyaabaan ka dhaxlay waxa weeyaan wadanka hal magaalo ka dhigay magaalooyinka kale dhan waa burbureen dhaqaale ahaan dadkana waa ka soo guureen in marka magaalooyin badan abuurmaanna waa aragti wanaagsan oo wadanku hal magaalo noqon oo ay aragti ah magaalooyinka kalena in la dhiso la balaariyo infrastructure-kooda la habeeyo electricity oo dadku awoodaan la geliyo biyo nadiif ay helaan waxbarasho ay helaan oo qofka muwaadinka ahi meesha uu degayo ay tahay khayaar laakiin aysan ahayn duruuf baahidiisii halkan kama helaya muqdishaan ka helaya aan u guur aysan ahayn laakiin ay tahay khayaar uu soo guuri karo meesha aragtida kale runtii Soomaaliya maanta ay u baahan tahay in la bedelana waxa weeyaan mujtamaca Soomaaliga ee aan rabno mustaqbalka muxuu yahay mustaqbal qofka muwaadinka xaq leeyahay mise waa mustaqbal sida hadda aan u dhisanahay oo maamul goboleedyo qabiil ku dhisan oo dadka qaarkood ilaa ay aamineen maamul goboleedka degantahay haddaad aadda maamul goboleedka kale inaad ajnabi oo kala tahay oo xuquuqdii dastuuriga ahayd oo qofka muwaadinka uu lahaa aysan maxfuud ahayn ama protected ahayn hadduu meel kala tago anigu haddaan maanta Baydhabo tago aanan ahayn reer koonfur galbeed aanan ka codayn karin aanan degi karin aanan ka ganacsan karin oo la arkayo adiga maamul kala ka timi aragtidaas xataa inay hadda sii xoogaysanayso kala mid laakiin state-ku waxay aaminsan tahay qofka muwaadinka xaq leh xuquuqdiisa dastuuriga ahayd wadanka meesha kasta oo tago waa inuu ka helaa ya inaan anigu isharraxo iyo inaan codeeyo waa dastuuri inaan cod waayo waxay ku xiran tahay codeeyaha laakiin ninka siyaasiga weynayso oran karin adigu reer koonfur galbeed ma ahid halkan iskama sharxi kartid waa inay tahay marka xuquuqda dastuuriga ama Puntland ama Muqdisho ya waa in marka wadanka oo dhan baa la wada leeyahay marka narrative-ka xamar baa dadka ka dhaxaysa oo la wada leeyahay oo macnawiya noqonaysa inta kale lama wada lahaane reeraa gaar u leh waa aragti lid ku nidaamka dawliga iyo statehood-ka wax la yiraahdo qarannimada waa statehood-ka qarannimada wax qarannimada lid ku marka wadanka la wada leeyahay qofka muwaadinka meesha uu joogo wadankaas kamid ayuu xuquuqdiisii dastuuriga ahayd inay ku helo ay waajib tahay wixii nidaamka dimuqraadiga ayaa xadadaya haddaad Baydhabo ka timid iyo haddaad Garowe ka timid iyo Hargeysa haddaad ka timid xamar haddaad degan tahay waad iska sharxi kartaa waad ka codayn kartaa
wax dhawaalada ma jirto waayo muwaadinimada ka weyn residency baa tahay inta kale marka waxaan baahanahay Soomaaliyada aan envision garaynayno oo aan rabno mustaqbalka inaan noqono hoggaanka hadda jira iyo nidaamka siyaasiga ahi waa inuu og yahay oo u qorshaysan tahay markaan leenahay Soomaaliya cusub baan rabnaa inaan yeegleeno Soomaaliya cusub aan rabnaa inaan yeegleeno hoggaan cusub bay rabtaa aragti cusub bay rabtaa nidaamkii dawliga ah noo jira inaan dib u reform garaynay rabtaa oo aan ku jihayna mujtamaceena rajo ah inuu barrito helayo wax meesha uu joogo meel ka fiican carruurtiisu meesha uu joogo noloshu maanta jiro nolol ka fiican inuu helayo وأنا مركز نذكر أبابله وحن أبدله أركتي أيانا أساسية وحصل واحد ليتكو رقم كان إلى لوشك أو مسيركي قفكي مسيركي أمة الله قدنا إيو أرنتم قبيلكو إن موادين ماضي هذا كان ليسي قبيلكو حب بدين وقفكو قبيل سكو أرك الله سكو أرك الموادين حقوق ذا موادين كسيلو علين كرا مركا لا لوشك أنا وحلاقة كمان كرا هذا لا لوشكو ماركتي أزمة حوق له هذا ودك جرته oo ku faaftay oo waxa la oran jiray muqtahay fitna aan la isku ceebayn aan la isku cabaarayn la wada aqbalay nidaamka kamid ah oo hadaadan laaluushka bixin ba aadan iradan u helin dadku sheegay waxa baan ila waxa kamid ah lacag ma haysataa hadaad sidoo helaysa dadaan lacag haysa anoo waxa muqtano anoo lacag bixin waan midna noqdaa corruption ka wala dagaalan kara ya waxaan u baahanahay inaan la diyaargaroobo inuu media qayb ka qaato in dhalinyaradu qayb ka qaato in wadaadadu culimadu qayb ka qaato ya waxaan karna laakiin did lacag ku soo bixiyay haduu madaxweynuhu noqdo inuu corruption la dagaalamo suuragal ma ha marka waxa weeye waxaad beertaad heli waa sax haddaan maanta ilaaluus wuxuu kala gadan berrinta dawladda sugi ya ha marka ma la dagaalami karnaa yes waa la dagaalami karnaa haddaan idhahna maanta ito ninkii musharaxiinta laaluush bixiya disqualified ha laga dhigo ma tartami kara liida ميدو قيب كقاطع دلنيرو قيب كقاطع إنه قف كسته أو مشرحنا على الدبر ديجو تيم وسنوجين أو وحب بحنية إلى عليها قف كي بحيانا العنباريو العايو لببلش جريو الدون كله شيء سمايد الله شيء قف كسته وبقية وين أبورنا بعدين لالوش كلا بقايا مجتمع هان قف على ما قبك أو سياسة السومالي إنه قطه political marketplace منك أقول حق بدن بحسكره هدويه حتى أجنبي صادر صوي ولوجيه العقد اللي بورصك عنكم بورصك عنكم وهذا اللي نجي صادر صدق هدو انت عقد قرته بريت الدين كي صادر صدق وشقيني ما دوك وشقيني ودك ما بالهيد هذوك marka dhaqankii abuurmay oo dhan horta in la diro raba laga guulo laakiin dhaqankaasayto qof marka courage ka dilay geesinimadeedina leh aragtideedina leh ay u baahan tahay inuu hogaamiyo wax kale waa sax aad u maasan tahay su'aasha ugu dambaysa ku weydiinay waxay tahay waxaan aragnaa kooxo isku tago oo maxaa la yiraahdaa musharaxiin oo groupka musharaxiinta hadda waa niman badan oo muxtarimiin oo madaxda horaha ku jirta adigu ma koox baad ka tirsan tahay mase kaliya socota beenu kaliya baa socda waay oo kama tirsani midowga musharaxiinta midowga musharaxiinta in waxaan aaminsanay in horta muwaadiniin Soomaaliyeed yihiin xaqna u leeyihiin in madaxnimada dalka raadsadaan inay dalbadaan doorasho xor oo xalaal ah oo daacad ah oo la isku wada raacsan yahana waa wada qabnaa oo waa wada difaacina anigu inaana ka mid noqonin waxaan u arkaa raggaasi intooda badani inay yihiin rag mas'uuliyada sare dalka ka soo qabtay oo ninka ugu hooseeya uu yahay nin wasiir soo noqday madaxweyne ilaa wasiir intooda badan rag isku background oo isku islah inay yihiin ama ururdiimadii wada ah ama xakiimtii wada ah ay rag asxaabtooda ah oo si wada yaqaan marka uma arko inay yihiin dadkii wacyiga maanta jira wax ka bedeli lahaa waa dad rag hore leh oo haddii maanta isla xisaabtan jiro qaar badan oo kamid ah lagu eedayn lahaa khaladaad ay galeen ama dambiye ay galeen marka hadda ka hor baa la weydiiya waxa la yiraahdaa maxaad uga mid noqon weyse dadka ay weydiiya xataa shacabka marka waxaan ku yiraahdaa anigu isbedel doon baan ahay fursad doon maahay raggaasna waxaan arkaa rag hadda fursad raadinaya waayo horaa loo siiyey fursad dadku u siiyeen wax qabadkoodiina waa la wada ogyahay marka waxaan leeyahay ma ahan khiyaarka ugu fiican ee Soomaaliya maanta u baahan tahay hoggaankeedii ma ahan ayagaan isleeyahay isla markaan waxaan u arkay inaysan waxba ku kordhinaynin ama ku daraynin wax qiimo ama value aysan ku daraynin tartanka anigu aan ku jiro aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa musharax madaxweyne عمر عبد القادر أحمد فقي وأنكور السنة مقالة نيروبي حرمته ودنك كيلي وأنتم سنتين دعوة برنامج كان أنت نمرك لكل من دون واحد لنا نود قلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوماليا هنولات.
thank you very much guulan ku rajaynaya Thank you very much. guulan ku rajaynaya Aad u mahadsan. thank you